kulan warbaahineedkooda wadajirka ugu qabteen halkan waa xarunta guud ee xisbiga cadaaladda ee dareelka oo ciidu ku leeyahay gudaha Hargeysa. xubno ka tirsan hoggaanka ugu sareeya asxaabta mucaaradka Soomaaliland ay waxay wadajir u shaaciyeen midowga cusub oo ay sameynayaan kaasoo ay ku waajahayaan shirgudoonka wakiilada iyo sidoo kale maayirada dalka. Ismaaciil Aadan Cismaan Ismaaciil Yare oo kamid ah mas'uuliyiinta xisbiga mucaaradka wadani oo ku hadlayay afka labada xisbi ayaa la hadlay warbaahinta. A'uudu billahi minash shaytaanir rajiim. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا بما تحب وترضى وصبدنا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تضلنا بعد إذ هديتنا وكن لنا عونا ومعينا وحافظا وناصرا يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول كهذا ليا أفكار لبض حسب قرن كوعد حسب قرن كوضني waxaan halkan marka hore ka salaamayaa shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan dibadda iyo gudaba waxaan mahad ballaaran u soo jeedinayaa shacbiga reer Soomaaliland sidii nadiifta ahayd ee nabadgelyada ahayd ee ficilka ahayd iyagoo muujinaya dalkooda iyo dadkooda gooni dalkooda iyo dadkoodaba iyo dalkooda gooni isu taagay caalamka tusaya siday ugu soo dareereen doorashadii inoo qabsoontay ee ilaahay guushay nagu siiyay Soomaaliland sida u dhantahay ee nabadda inoogu dhacday waxaan aad mar labaad ugu mahadnaqayaa shacbigu sida wanaagsan ay nabadda u ilaashanayeen sida wanaagsan ay sabirka u lahaayeen sida wanaagsan ay u sugayeen natiijada ka soo baxaysay doorashooyinkii dhacay aad baan uga mahadnayaa shacbiga reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan waxaan halkan si mahadle aad uga garnaqayaa oo cod dheer ku gaarsiinayaa dhammaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta ay joogaan haday tahay ciidamada booliiska oo kuwa koowaada oo shaqadan gaar u lahaa haday tahay ciidamada qaranka ee militariga haday tahay ciidamada asluubta haday tahay ciidamada socdaalka haday tahay ciidamada badda haday tahay ciidamada sirdoonka haday tahay traafikada oo habeen iyo maalinba u soo jeedo iyaguna booliiska ka tirsan oo cadceedda u taagnaa oo baabuurta kala celinayo dadka kala celinayo kala hagayay dhammaan ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah Ilaahay inta ka sokaysa kuwii keenay inay doorashadani qabsoonto oo hirgasho oo nabad ku dhacdo kolka Ilaahay tiisa laga yimaado aad iyo aad baan halkan uga salaamay meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay hambalyo shaqo wanaagsan baad qabateen habeenay meel sidaas ugu soo jeedaan insha Allah xaq badan idinka maqana waad heli doontaan haddaan inta ka gudbo waxaan aad iyo aad halkan si farxad looga salaamayaa oo ugu mahadnaqayaa koob iyo kontonka xildhibaan ee u soo baxay labada xisbi qaran xisbiga u ciidiya xisbiga wadani ee keenay inay labada xisbi qaran ku guuleystaan doorashadii golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland si xad dhaaf ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa guushaana waxaan leeyahay ilaahay baa ina siiyay ilaahay baa idinkana sabab idinka dhigay inaad labada xisbi u keentaan aad iyo aad baan uga mahadnaqayaa waxaan leeyahay inta inoo hadhayna oon dardaaran ku siinayaa sidii wanaagsaneed ugu soo dareeteen codka leeydiin siiyay Soomaaliland idin siisay ee axsaabta qaranku boqolaal Soomaaliland oo doonaya idinka soo doorteen labada xisbi ina dariiqiini ku taagnaataan oo u dhagnugulaataan axsaabtiini idin soo doorateen dadka idinka soo dhex socday oo u hogaansanataan marba wixii sidoo nidaamka uu yahay ee labada xisbi qaran u baahan yihiin haddaan inta ka gudbo waxaan halkan aad iyo aad salaan ka gaarsiinayaa madaxda iyo hoggaanada labada xisbi qaran ee xisbiga ucid iyo xisbiga wadani oo u dhabar adeegay una soo jeeday doorashooyinkii dalkan ka dhacay guul aynu ku gaadhnay haddaan u soo noqdo ujeedada saxaafadan la qabtay waxa weeyaan qaraar iyo go'aan ay wada gaadheen labada xisbi qaran oo ay u arkeen inay tahay wada jirka iyo midnimada Soomaaliland meel kasta ay joogaan xaqna ay u leeyeen sharciguna uu siinayo qoraal ba halkan yaala labada gudoomiye xisbi saxiixeen markii labada xisbi qaran hogaankoodu ka shiray go'aanna la gaadhay iyaguna ay gudoomiyeen warqadani waxay tilmaamaysaa qoraalkana tilmaamaya waxay ku socotaa dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku qoran waxa ogeysiin kula gudida fulinta xisbiga wixid
waxaa ogeysiin ku leh guddida fulinta xisbiga wadani, waxaa ogeysiin ku leh xildhibaanada labada xisbi, wakiilo iyo deegaan ee uga soo baxay labada xisbi qaran ee jamhuuriyadda somalilan. ujeeddada taariikhdu maanta bishu waxa weeye waa 6 waa bishii 6 2021. ujeeddada qoraalkani wuxuu yahay magacaabis guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaanka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda somalilan. qoraalku wuxuu u dhigan yahay sidan soo socota: markii ay darseen labada xisbi baahida loo qabo in la sameeyo guddi isbahaysi, markii ay u muuqatay in la derdergeliyo howlaha wada shaqaynta labada xisbi mucaarad, markii ay sameeyeen wada tashi hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad, markii ay ku qanceen xisbiyadu waayo aragnimada iyo aqoonta guddida. maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Juun 2021 waxay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ah ee u cidiya wadani magacaabayaan guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka jamhuuriyadda somalilan. tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee ucid uu soo saaray guddidaasi waxay ka kooban yihiin 5 ka koowaad iyo xilkoodaba. ka koowaad waa mudane Siciid Cumar Axmed Siciid Ucid oo dhinacayga midigta taagan ayaa koow ka ah, waa guddida xisbiga ucid ayuu ka mid yahay. 2 mudane Shucayb Maxamed Muuse guddida xisbiga ucid. 3 mudane Axmed Maxamed Allaale guddida xisbiga ucid. 4 mudane Maxamed Cali Bilaal guddida xisbiga ucid. mudane Bashiir Xasan Xamari guddida xisbiga ucid. guddida xisbiga ucid waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood oo ka tirsan xisbiga qaranka ee wadani, iyaguna waa kuwa halkan soo socda. tirada guddida xisbiga wadani waxa weeye 5 xubnood. waxaa ugu horeeya xildhibaan Cabdilqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde ood wada garanaysaan, siyaasi ruug cadaadiya, baarlamaanka intuu ku soo jiray aad garanaysaan, madaxdii dalkan u soo halgantay ka mid ah. 2 mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan oo aad garanaysaan, waa guddida xisbiga wadani. mudane Ismaaciil Aadan Cismaan oo aniga ah, waa guddida xisbiga wadani. ka 4 mudane Cismaan Afgaab Nuur waa guddida xisbiga wadani. 5 mudane Maxamed Faarax Cabdi waa guddida xisbiga wadani. waxaa warqadaasi saxay oo guddoomiyey markii ay isugu yeedheen labada dhinac ee hoggaanka xisbiga wadani iyo xisbiga ucid. waxay labada guddoomiye xisbiga heer qaran go'aamiyeen wataan kor ku soo sheegay. waxaa warqadan ku saxaxan Faysal Cali Waraabe guddoomiyaha xisbiga ucid. waxaa halkan ku saxaxan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi guddoomiyaha xisbiga wadani. wabillahi tawfiiq. Faysal Maxamed Aadan, Faysal FIFA TV ga Somali Cable.